kulanti wacan daawadayaal halkan waa janalka xulka wararka kusoo dhawaada wararka iyo macluumaadka aan idinkaga helno xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir oo shalay musiibo weyn ka dhacday taas oo saameysay mas'uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan gobolka Banaadir oo siyaabo kala duwan u saameysay musiibadii shalay ka dhacday xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir wararkii ugu dambeeyay dhaawacyada iyo dhimashada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale oo goordhow laga qaaday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo gobolka Jubbaland oo xiriirka u jartay dowladda federaalka ee Soomaaliya haddaba haddii aad ku cusub tahay barteen YouTube-ka fadlan subscribe si aad u hesho wararka iyo macluumaadka aan bartan soo gelino aan ku bilowno daawadayaal shalay galinkii dambe kulan ka dhacay gobolka Banaadir oo looga hadlayay tubta amniga oo toddobaadkiiba hal jeer la qabto ayaa waxa isugu yimid gudoomiyaasha degmooyinka agaasimayaal qaar ka tirsan gudoomiye ku-xigeenada gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana la sheegay in shirka markuu uu furmay oo daqiiqado socday qarax uu ka dhacay howlka shirka uu ka socday ee gobolka Banaadir waxaana ku dhintay ku dhawaad 12 qofood oo isugu jiray gudoomiyaal degmo agaasimayaal gobolka Banaadir ka tirsan iyo dhalinyaro amni ahaan ula socday gudoomiyaashii ku sugnaa howlka iyo madaxdii meesha joogtay waxaa dhaawac halis ah oo soo gaaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariiso gudoomiyaal degmo iyo agaasimayaal waxa la xaqiijiyay magacyada 3 gudoomiye degmo 4 agaasime la taliye iyo xiriyaha gobolka Banaadir ciidaha caalamiga ah oo dhammaantood weerarkaas ku dhintay waxaana ay kala yihiin Mahad Cilmi Cali gudoomiyaha degmada Waaberi Mahad waxa la sheegay inuu horey u ahaa xildhibaan ka tirsanaa dowlad goboleedkii Galmudug Mahad waxa uu sidoo kale kamid ahaa dadkii la soo shaqeeyay maamulkii Xibin iyo Xeeb ee magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud bishii July ee sanadkan ayaa loo magacaabay gudoomiyaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir Mahad Cilmi Cali waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo ahludiin ahaa sida ay sheegeen dadka yaqaan sidoo kale dadka ku geeriyooday waxaa kamid ahaa Sahre Xaaji Markeesi gudoomiyihii degmada Shangaani ee gobolka Banaadir Sahre Sheekh Amiin Markeesi inta aan loo magacaabin degmada Shangaani waxa ay ka soo shaqeysay wasaaradda warfaafinta waxay ahayd saxaafiyad ka tirsan warbaahinta qaranka gaar ahaan SNTV oo ka ahayd film qaadi muddo ka badan 4 sano Sahro Sheekh Amiin Markeesi aabaheed Sheekh Maxamed Amiin Markeesi waxa uu soo noqday madaxa farsamada telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV Sahro Sheekh Amiin Markeesi gudoomiyihii geeriyooday ee degmada Shangaani ee gobolka Banaadir ayaa sanadkii 2018 loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka degmada Shangaani ka hor intii aan loo magacaabin gudoomiyaha degmada Shangaani ee gobolka Banaadir iyadoo intii ay joogtay ku soo kordhisay adeegyo muhiim ah bulshada ku dhaqan degmada Shangaani ee gobolka Banaadir Allah u naxariisto Sahro Sheekh Amiin Markeesi waxay isbitaalka ugu geeriyootay dhaawac ka soo gaaray musiibadii ka dhacday xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir waxa kale oo kamid ahaa mas'uuliyiintii ku geeriyooday Sabaax Cabdullaahi Asad waxay kamid ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo noqday qurbaha bishii Abriil ee sanadkan ayaa Sabaax Cabdullaahi Asad loo magacaabay gudoomiyaha degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir iyadoo xilkaas ka bedeshay Sharmaake Ladane inkastoo ay ku cusbeed xafiiska degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir haddana waxay ahayd gabadh aad u firfircoon oo waqti badan gelisay horumarinta degmada ay gudoomiyaha ka ahayd Allah u naxariisto Sabaax Cabdullaahi Asad waxay ku nafweeday musiibadii ka dhacday xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir dadka kale ee mas'uuliyiinta ahaa ee ku geeriyooday waxa kamid ahaa Xasan Maxamed Sabriye oo ahaa la taliyaha dhinaca sharciga ee gobolka Banaadir Xasan waxa uu ahaa sharci yaqaan khibrad dheer u leh arrimaha sharciga oo la soo shaqeeyay inta badan gudoomiyaashii gobolka Banaadir ee soo maray waxa uu ka soo shaqeeyay dowladii dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan dowladda hoose ee Xamar waxa uu muddo dheer ka tirsanaa
dowladda hoose isagoo intii ay jirtay dowladdii maxamed siyaad barre ee taliskii militariga uu ahaa shakhsi ka shaqaynayay dowladda hoose ee xamar isagoo xilal kala duwan soo qabtay isla markaana xilligan ahaa la taliyaha dhinaca sharciga ee gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waxaa dadka yaqaana ay ku sifeeyeen xasan maxamed sabriye inuu ka mid ahaa dadka ugu khibradda badan dhinaca sharciga iyo dowladaha hoose xasan maxamed sabriye waxa uu jiray 70 waxa uu ku geeriyooday qaraxii argaxiso ee ka dhacay xarunta dowladda hoose ee gobolka banaadir mas'uuliyiintii kale ee ku dhimatay waxaa ka mid ahaa injineer shuriye agaasimaha waaxda qorsheynta iyo injineeriyada gobolka banaadir oo asagana ahaa mas'uul in badan ka soo shaqeeyay gobolka banaadir waxa uu ahaa shakhsi dhalinyaro ah oo firfircoon sida ay sheegeen dadka yaqaana waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday xarunta dowladda hoose cabdi daahir diri xiriyaha gobolka iyo hay-adaha caalamiga ah cabdifataax cumar xalane ayaa ka mid ahaa dadka ku geeriyooday oo ahaa agaasimaha waaxda nadaafadda ee gobolka banaadir allah u naxariistay cabdifataax cumar xalane waxa uu ahaa saxafi waxa uuna agaasimo ka soo noqday dhowr idaacadood oo ay ku jiraan radio Gold FM radio Mustaqbal idaacadda maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane waxa uu sidoo kale soo noqday agaasimaha warfaafinta gobolka banaadir iyo afayeenka maamulka gobolka korinta aan loo magacaabin agaasimaha howlaha guud ee gobolka banaadir bilowgii bishan July ayaa cabdifataax cumar xalane loo magacaabay agaasimaha waaxda nadaafadda ee gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane markii loo magacaabay agaasimaha waaxda nadaafadda ee gobolka banaadir waxa uu darbadii bilaabay firfircooni in uu shaqada waaxda nadaafadda uu dardar geliyo isaga oo ka gooneed dib u soo celinta bilicda caasimadda gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo shahaadada heerka koowaad ee maamulka ka haystay jaamacadda simad ayaa ka mid ahaa dhalinyarada firfircoona ee dalku ka shaqaynayay waxa uuna maalmihii dambe ku howlanaa dardargelinta howlaha nadaafadda iyo bilic soo celinta gobolka banaadir sidoo kale mas'uuliyiintii ku geeriyootay waxaa ka mid ah cabdullaahi dheere agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha gobolka banaadir waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday basiire cabdi maxamed dhalinyaro iyo xogayaal la socday ee gudoomiyaha gobolka banaadir mas'uuliyiinta kale ee ku dhaawacmay qaraxaas waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo xaaladiisa la sheegay inay tahay mid liidata xalay waxaa lagu sameeyey dhowr qalliin waxaana la sheegay in saacado badan dhaqaatiirta ay la tacaalayeen xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso sidoo kale waxaa dhaawaca dhaqaatiirta ay la tacaalayeen ka mid ah gudoomiyaha degmada warta nabadda Seyne Maxamed Warsame Xaabsi waxaa kaloo dhaawac uu soo gaaray gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir oo xilkan soo qabtay xilligii dowladii Xasan Sheekh sidoo kale mas'uuliyiinta dhaawacmay waxaa ka mid ah agaasimaha xiriirka degmooyinka Dhagacade gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada Kaxda Cali Jilci iyo xogayaha agaasimaha xafiiska duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Ismaan Jariisab oo lagu magacaabo Caaqil waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan in goobtaas ay waxyeelo ka soo gaartay مسؤولين كله وقابته كسرنا. الله لبذا الدارون إفكا لبوار مايه آخره لبنانيو ليبان تدين تيو حقا إني الله تان لا حول ولا قوة ويلو وقدر إنه سما إني الله تان لا حول ولا قوة warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sida ay ku suura gashay in qarax uu ka dhaco hoolka shirarka ee dowladda hoose ee gobolka banaadir ka hor inta uusan qaraxa dhicin waxaa saacado ka hor xarunta dowladda hoose lagu soo dhaweeyay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan laakiin saacado markuu ka tagay xarunta dowladda hoose waxa la sheegay in qarax uu dhacay waxa la tilmaamay in laga hadlayay shirka tubta amniga oo gelinkii dambe ee shalay iyaga oo mas'uuliyiinta daalan ay shirka galeen waxa la sheegay in qaraxaas uu ahaa mid xarunta gudaheeda ka dhacay oo aanu ahayn baawur gudaha u soo galay warar kala duwan iyo macluumaadyo ayaa laga helayaa sida ay u suura gashay laakiin wararka warbaahinta
iyo dadka muqdisho ku sugan ay isla dhexmarayeen saacadihii ugu dambeeyay ayaa ahaa in haweeney ka mid ahayd shaqaalaha gobolka banaadir oo qaabilsaneed qaybta dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo aragga la'ayd ay ka dambeysay qaraxa ka dhacay hoolka shirarka ee xarunta dowladda hoose ee gobolka banaadir inkastoo arrintaas aan si rasmi ah loo xaqiijin karin gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir maxamed cabdullaahi tuulax ayaa sheegay in uu jiro khasaare xoogan oo uu sababay qaraxa haatanna ay ku howlan yihiin sidii loo badbaadin lahaa dhibanayaasha qofka isku soo xiray walxaha qarxa ayaa la sheegay inuu gudaha u galay dhismaha dowladda hoose isagoo sii abbaaray howlka ay ku shirayeen mas-uuliyiintan oo ka arrinsanayay ammaanka caasimadda kadib markuu qaraxaas u dhacay magaalada waxaa laga dareemay saameynta uu reebay iyada oo wadooyinka halbowlaha isu socodka magaaladana gabi ahaanba la xanibay dadka muqdisho ayaa xalay ku seexday walaac iyo inuu jiro khataro amni iyadoo uu saameyntaas saakay laga dareemayay ilaa iyo gelinkii dambe ee maanta magaalada caasimadda muqdisho oo meelo kala duwan oo awal furnaa dib loo xiray wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dhaawaca gudoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow gudoomiyaha degmada warta nabadda sayri maxamuud warsame iyo xubno kale oo ku dhaawacmay xarunta dowladda hoose ee gobolka banaadir ay qaaday diyaarad dagaal oo ambalaas ah oo ay leedahay dowladda qatar taas oo gelinkii dambe ee maantay ka qaaday garoonka aadan cadde ee muqdisho warar kala duwan ayaa ka soo baxaya halka lagula tacaalayo xaaladda caafimaad ee mas-uuliyiinta gobolka banaadir wararka la helayo waxay sheegayaan in la dhigayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaala dalka qatar halka warar kale ay sheegayaan in la dhigayo isbitaal ku yaala dalka Turkiga halkaas oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo mas-uuliyadda weerarkaas waxaa sheegatay ururka al-shabaab shabaabku waxa ay sheegteen mas-uuliyadda qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee gobolka banaadir gaar ahaan howlka shirarka war ka soo baxay al-shabaab ayaa waxaa la sheegay in lagu bartilmaameedsanayo qaraxaas ergeyga gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan oo u dhashay dalka Mareykanka laakiin goorta uu qarax u dhacay kuma sugnaan ergeyga iyo mas-uuliyiintii la socotay waxaana uu qarax u dhacay dhowr saacadood ka hor markii ergeyga uu ka ambabaxay xarunta dowladda hoose gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ergeygaas James Swan lagu magacaabo u dhashay dalka Mareykanka haddaba wararkii ugu dambeeyay macluumaadkii xogaha laga helayo qaraxii xaruntii dowladda hoose ka dhacay shalay gelinkii dambe iyo dhaawacyada mas-uuliyiinta uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka banaadir waxaan idinku soo gudbin doonaa bartan YouTube-ka wixii ka soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan daawadayaal subscribe dheh oo ha moogaan in bartan YouTube-ka aad dokumentid wahagaag inta ayaan ku ekeenaynaa macluumaadka iyo wararka aanu ka helaynay qaraxii shalay gelinkii dambe ka dhacay xarunta dowladda hoose oo mas-uuliyiintii ku dhaawacmatay uu ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir loo qaaday dalka dibadiisa markana Jubbaland dowlad goboleedka Jubbaland waxay hakisay wada shaqeyntii dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo baaq u dirtay beesha caalamka kadib kulan golaha wasiirada maamulka Jubbaland ay maanta ku yeesheen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa lagu cadeeyay in la hakiyay xiriirka ka dhaxeeyay dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedka Jubbaland kulanka ay yeesheen golaha wasiirada Jubbaland ayaa waxa gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe waxaana kulanka diiradda lagu saaray faragelin ay sheegtay Jubbaland inay kala kulmayso dowladda federaalka ee Soomaaliya golaha wasiirada ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa isku raacay in la hakiyo maanta laga bilaabo wada shaqeynta iyo isu socodka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland dhinaca kale qoraal ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa looga jawaabay qoraalkii shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya lagu hor yimid odayaasha soo xulaya xildhibaanada Jubbaland dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeysay inay faragelin ku hayso doorashada ka dhici doonta magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland waxayna beesha caalamku ugu baaqday Jubbaland inay la socdaan faragelinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ku hayso doorashada Jubbaland waa hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa macluumaadka iyo wararka aanu idiin haynay oo maanta aanu diiradda ku saarnay musiibadii ka dhacday xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir